هذا إلى سبحانه وتعالى ضد أي جهنم أبلن قاضي ولقد ذرأنا جهنم وحان أخلقنا كثيرا إن بضبط إلى سبحانه وتعالى ومن الجن والإنس جني إيا إنس بضن أيا جهنم الله أبوري جهنم الله قلقي صوصم حيثاي لهم قلوب لا يفقهون بها قلبي على أيا التي دينت عليك فهمي واين هاتهي كحفظين هاتهي كدقستين هاتهي الرياقين لهم قلوب لا يفقهون بها وعلى سيئي إن رأيو ير إلى سبحانه وتعالى حقيك أركي واين دينت عليك فير واين فنانين تي كفيرين كوهيتاي كفيرين وحي كدعوذين معاصي والبق إلهي دين سبحانه وتعالى عندهن سلا أي أذيك سبين آذان إيدك أيا التي لا يسمعون بها حقيك مقلي واين دينت عليك دغيسن واين وح ربي نو صابري او دينتي سيئه way ku dhageysan waayeen heesa ayay ku dhageysteen waxyaabihii rabbi xaaraantinimeeyay ayay dhagahooda u isticmaaleen rabbi wuxuu yiri ulaa'ika ama kuwaasi waa kal an'aam waa xoolo oo kale xoolaha wanaagsan heesuu ma dhageystaan xoolaha wanaagsan rabbigood ayay caabudaan xoolaha wanaagsan way tasbiixsadaan xoolaha wanaagsan ilaahi qalqay wuxuu ku abuuray ama uu ku hidaayeeyay ay markaa ku socdaan bal hum adal ayaga ka dhumid badan buu dhahay ilaahi subhanahu wa ta'ala wa ulaa'ika humul ghafiluun wa kuwa ilowsan xaqa wa kuwa ilowsan aayaadka ilaahay wa kuwa ilowsan diintiina loo soo dejiyay wa kuwa ilowsan rasuulka sunnadu noo dhaafay salawaatullaahi wa salaamun calayh haddaba dhegihii waxaanu adeegsan weyna maanta diinta ilaahay waxaanu adeegsanay inaan ku dhageysana heesaha war dadka muslimiinta ah oo rabbigood ka xishoonayo ka fogaada waxa la yiraahdo istimaaca iyo dhageysiga heesaha guryaheena maanta waxaa buuxiyey heesooyin dukaamadii waxaa ka wada sidan heesooyin gabdhihii waxaa laga kari la'yahay heesaha joojiya war masaajidada taga war goobaha diinta taga ee diinta ilaahay barta waa laga la'yahay gabdhaha maanta xaraf diineed barta ilaa waxay xifdisan tahay 28 iyo wax ka badan oo heesooyin ah boorsada waxaa ugu jira cajalooyinkii heesaha guriga waxaa u dhooban cajalooyinkii heesaha war iska ilaali ilaahayna ka cabsa subxaanahu wa tacaala aabihii ayaa gadaaya hooyaa u soo gadaysa mar allaala markay guriga xaaqaysa doorka waxaa u daaran heesaha markay dukaanka gadaysa waxaa u daaran heesaha markay kushiinka ku jirta waxaa u daaran heesaha aaway kalaamkii rabbi subxaanahu wa tacaala war aaway diintii ilaahay war aaway kalaamkii rabbulciza ma waxaa ka qiimo batay kuwa fanaaniinta ee heesa oon dulliyaasha ah oo rabbi agtiisa qiimaha aan kulahayn waashucaraa'u yattabicuhum alghaawuun abwaaniinta fanaaniinta shucarada dulliyaasha kuwa lagu tilmaamay inay ayagu yihiin inay dadku hanuuniyaan dad ma hanuuniyaan oo dadkay baadiyeeyaane waxa raaca kuwa gaawiintaa buu dhahay ilaahi subxaanahu wa tacaala gabar dhunsan iyo wiil dhunsan ayaa raaca ayagaa ku socda ayagaa cajalooyinkooda soo gata ayagaa ku riyaaqa ayagaa dhegaysta ayagaa habeenkii ku jiifta xaaladooda sidaa ah waxa raaca gaawiinta buu dhahay ilaahi subxaanahu wa tacaala waashucaraa'u yattabicuhum alghaawuun ilaahasoo ka hadlaya muxuu yidhi alam tara annahum fii kulli waadin yahiimuun ma arkin miyaa fanaaniinta waadi kasta inay iska dhex dabaalanayaan rasuulkii allay ku heesaanay muusi ku kortumaan mararka gobol ka mida kalaamkii allay ku heesaanay muusi ku kortumaan mararka gobol ka mida shaytaan bay ku ammaanaan mararka gobol ka mida madax taaqiin ah oo xadgudubtay ku ammaanaan marar gobol ka mida waxyaabo jacayl ah oo wan ay ka keeneen in cadaab lagu mutaysta maahane aan naxariis alle lagu heleen ayay ku ammaanaan alam tara annahum fii kulli waadin yahiimuun وأنهم يقولون ما لا يفعلون وحيكو هضلان وحيابة أيسان فلين وحيابة أيسان سميني وحيابة هميقود أوسن جارسيسني كاتيكو هضلان بو إلى الله سبحانه وتعالى والويلة جعل هيسها هي قبلها هيسها جعلوا طوبة كينا ربكين أصول نقضة عجلوينك هيسها بدلة والقرآنك إيا كلامك رب العزة بدلة وروحان هيسا وأدقي سليسان قبرك وحي إذنك أنفعيان مجرو وعند سكرات هدي لقارو وحي إذن أنفعيان مالي وفوال بها أغاذو وحدقيه سكبتا قلبك سأكجرو أيوكو قاتو ميستاكو ندنسا جبر أيا سكرات مالين
say u sakaraadaysay dhowr maalmood u sakaraadsanayd ayaa la damcay in tawxiidka loo laqino oo la yidhaahdo laa ilaaha ila allah dheh. aad bay heesaha u jeclaan jirtay, cajalooyinka heesahay dhegaysan jirtay. lagama keri karin jooji, iska dhaaf lagama keri karin. sakaraadkii ayaa la gaaray. waa maalintii ugu dambaysay ee dunida, waa maalintii ugu horaysay qabriga u hooyan lahayd. walaalaheedaa laga dhex wadaa, waalidkeedaa laga dhex wadaa, karfan cad ayaa loo gelinaa. maanta waxay u socotaa qabri ciriiri ah. daarta adduunkay ka guuraysaa, daarta aakhiray u socotaa. waa sakaraad, waxay jeestaa meeshay ku xayaata bixi lahayd. sidaa ayaa loogu wareegsan yahay. waxaa la yidhi laa ilaaha ila allah dheh. waayo man kaana aakhiru kalaamuhu laa ilaaha ila allah dakhala aljanna. qof kastoo warkiisa ugu dambeeya uu noqdo laa ilaaha ila allah jannaduu galaa. gabadhu waa la jeclaa inay laa ilaaha ila allah dhahdo si ay jannada u gasho. aad bay u fiicneed, laakiin nasiib wanaag markay soconaysay heesi jirtay, markay suuqa ka soo adeegaysay heesi jirtay, mar allaala markay kushiinka ku jirtay heesi jirtay. salaadaha allay ka tagtay, diinta alla ayay raaci weysay, kitaabka allay hoos marisay, heesihii ayay kor soo marisay. dadku waxay dhaheen laa ilaaha ila allah dheh. laa ilaaha ila allah dhehaa lagu celceliyey si ay khaatimadeeda u wanaagsanaato. waxaa loogu celceliyey kelimada tawxiidka si ay jannada allah u hesho. waxaa loogu celceliyey shahaadateynka inay qirto, laakiin arrintaa way awoodi weysay. waayo ayadaa ku soo barbaartay fisqi iyo macaasi iyo waxyaabo ilaahay diiday subxaanahu wa tacaala. gabadhii afkeeda lagama helin hadal aan ahayn labadii walaala ah ninkii lacag leh ayaa weyn. sidaasay xayaatada uga baxday, sidaasay u dhimatay, sidaasay alla ku tartagtay subxaanahu wa tacaala. ayadood hadalkeeda sidaa ah ayaa la dhaqay oo karfanta la geliyey oo qabriga la dhigay. waxa la soo bixinaa ayadoo heesaysa oo dhahaysa labadii walaala ah ninkii lacag leh ayaa weyn. waayo qof kasta wixii uu ku barbaaruu ku duqoobaa, qof walba wuxuu ku duqoobuu ku dhintaa, qof walbana wuxuu ku dhintuu alla ku soo bixiya subxaanahu wa tacaala. sidii nebiga yidhi sala allahu calayhi wasalam, yabcasu allahu kullu axadin calaa maa maata calayh. wixii korkiisa uu ku dhintaa lagu soo bixiyaa. walaalayna daadna maqlaysa demi cajalooyinka heestaha, war dukaanka ka bixi. rabbi subxaanahu wa tacaala diintiisa ku bedelo, baraka iyo khayr ayaad gaaraysaa adduun iyo aakhiro. heesuhu waa xaaraam. haddii la dhegaystaa dadka waxaa looga shubaa dhegaha nasaarta naareed. gabdhaha waa inayna maqlaan, haddayna maqlayaan ay iska dhaafaan. wiilasha dhallinyarada ah ee aad u jecel waa inay iska dhaafaan, diinta allay ku beddeshaan. hidaacadooyinka laga soo deeya heesaha waa inay iska dhaafaan oy rabbigood ka cabsadaan subxaanahu wa tacaala. intaasoo dhan waxyaaba ilaahayna amraya waaye. diinta ilaahay oo la barta iyo kalaamka rabbi oo la barto oo lagu camal falana horumar iyo wanaag ayaa lagu gaaraa. heesaha haddii aan ku dhegno oo diinta alla aan ka fogno, cadaabkaa nagu dhegayso oo jannadaana diidaysa. diinta alla haddaan qabsano oon heesaha ka tagnana, jannadaana qabsanayso inaan galno ayuu ilaahnu amrayaa subxaanahu wa tacaala. cadaabkana waa naga durjinaa. aad iyo aad aan u dadaalno, rabbi aan ka cabsano subxaanahu wa tacaala. qalbigeena wacdiga iyo diinka ha galo, ummadda xaqa aan u sheegno, aan baraarujino. diinta ilaahay waxa ay tahay aan tusino. zamanka aan ku jirno waa zaman fitan. waxaan joognaa wakhtigii diintu ay noqonaysay dhuxusha dabka ah oo qofkii qabta ay gubaysay, kii diida ama iska fujiyana uu halaagsamayey. war adduunka hamigeena yuusan noqonin. nebigaa ilaah ka magangeli jiray sala allahu calayhi wasalam, allaahuma laa tajcal iddunya akbara hammina. allow hamigeena kan u weyn adduunka ha ka dhigin. sidaa ayuu dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam. ee hamigeena kan u weyn aakhira ha ahaado. war adduunka ilmo ayay leeyihiin, aakhirana ibnay ilmo ayay leedahay. fakunuu abnaa'a alaakhira. war ilmihii aakhira noqdo, walaa takunuu min abnaa'i dunya. ha noqonina ilmihii adduunka. adduunku waa kanaa, waxuu naga qarsaday malaha, wax noo dhiman ma jiro. xaaladiisoo dhan waa u jeedaa, waa baaba'a, meel ayuu ku eg yahay. aakhira waa daar qaraar ah oo sugnaasho ah, laan laga tegayn oo alla agtiisa haddii la aado aan laga soo noqonayn. safarkaa dheer aan u soconaa walaalayaal, aad iyo aad ayay dhibaato u tahay anagoo safar dheer u socono, sahaydeena ay yar tahay. war diinta alla sahay aan ka dhigana, watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa. taqwada alla sahay ka dhigtee heesaha sahay ha ka dhiganina. war
maanta sahay waxaan ka dhiganay waxyaabaha ilaahay diiday war shayaadiinta codadkoodaan sahay ka dhiganay maanta ayagaa sahay noo ah wallaahi intaan meel gaarnay naga go'ayaan sakaraadka marka la gaaro waa go'aysaa sahayda noocaas ah sakaraadkaa lagugu dhibaataynaa mashaakil fara badan ayaad asiibaysaa ilaahay ayaa yidhi fakayfa idaa tawafathum almalaa'ika say xaaladooda noqonaysaa markay malaa'igta oobsanayso yadribuuna wujuuhahum wa adbaarahum oo wejiyaalkii adbaarta laga tumaayo sariirta ay saaran yihiin oo lagu celin la'yahay inaan ahlu tawxiid ma ahayn ahlu diin ma ahayn ahlulqur'aan ma ahayn ahlulfisqi ahlu macaasi ahlu heesa ayay ahayd maca daalika maanta malaa'igtiya sariirta ku garaacaysa say xaaladooda noqonaysaa buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala maalintaasay kugu bilaabanaysaa fiiri waxaa lagu dhigay qabriga waa kaaga daran tahay waa lagaa soo bixi waa kaaga sii daran tahay rabbi hortiisaa lagu geey waa ka dhib badan tahay ilaa cadaabka jahannamo sidaasaa noo dambaysa saasaa la aadi doonaa xisaabtan weyn ayaa jira intaan xisaabtankaa la gaarin aan isxisaabno heesuhu aad iyo aad bay qalbiga u qallajiyaan diinta alla iyo heesa alla hal meel islama galaan haddii qalbigaaga heesaha ay ka buuxaan diinta alle iimaanka ma soo gelaayo haddii diinta alle ay ka buuxdana heesuhu ma soo gelayaan ee diinta alle ka buuxso qofka joogkiisii qalbigiisa xaraf qur'aana uu ku jiro guri camiran oo qiimo badan buu la mid yahay qofka qalbigiisa aan ku jirin shay qur'aanka ka mid ahna guri qaraab ah ayuu la mid yahay qofka rabbigiis xusaaya iyo kaan rabbigiis xuseen ka masal xayi wa mayd qof dhintay iyo qof nool ayay la mid yihiin iskala mid yihiin ninka rabbigiis xuso waa qof nool subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah qur'aankoo la aqriyo nebigoo lagu salliya sala allahu calayhi wasalam diintoo kor loo qaadaa qalbigiisa ka buuxa qof xayi ah ayuu la mid yahay qofka meydkaa heesaa ka buuxa waxyaaba rabbi diidaa ka buuxa qabyaalad xumaato badan ayaa ka buuxda mashaakil fara badan ayaa ka buuxa ficil xumaato ayaa ku jirta waa nin meyda oo kale ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam haddaba saasay u kala baxeen gabar walboo heesaa ah ama heeska jecel qalbigeeda ka buuxa waa qof meyd ah oo adduunka socotaa gabar walboo xijaabatay diinta alla qaadatay qur'aanka rabbi akhrisanaysa qalbigeeda qur'aanka rabbi ku jirana waa qof xayi ah oo nool haba dhimata haddii markaa la doonee qof nool oo kale ayay markaa la mid noqonaysaa bacdamaa diinta ilaahay kor u qaaday rabbi diintiisana ay aad iyo aad u tixgelisay ay raacday ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu xaqana waafajiyo qalbigeennana uu ka madoobeeyo heesaha kana tirtiro kuna camiro diinta ilaah subxaana wa tacaala wa aquulu qawlii hada waastaqfiru allahu lii walakum wabillahi tawfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam